بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. waxaan jecelahay halka kale inaan ummadda reer Somaliland kala hadlo taxanahaygii ahaa talo tilmaan tusaale iyo toosin. Deriskan maanta waxaan kusoo qaadan doonaa arrimaha xisbiyada iyo xisbinimadu waxay tahay iyo sida aynu xisbiyahan u noqonayno oo aynu uga bixi doono ujeedadii ugu weyneed ee ahayd inaynu qabaa'ilada iyo qabyaaladda ku yarayno oo aynu isugu nimaadno meel aynu mabda iyo dan aynu wadaagno oo aynu ku walaalowno oo aynu ku abtirsano xisbinimo. waxaanu samaysanay tijaabo ururaynu furanay. ururadii baa leeyihi 3 xisbi baa kasoo bixi doona. 3 xisbee soo baxay oo joogkii hore ahaa udub kulmiye iyo wucud ayaa xisbi xaakimkii udub u hadhay. wuxuu ku hadhayna ay ahayd tixgelin la-aan sharciyada xisbigu leeyahay iyo xisbiyahanka oo la kala garan waayo ciddii xisbiga aasaastay midhahiisa dhalisay ee guushiisa keentay iyo kala dambeyn la-aan qadarin la-aan ixtiraam la-aan iyadoon miradkii iyo quwaddii iyo dhididkii iyo juhdigii uu qofku geliyey layska indha tiray oo laysku qabsaday. taasaa baabisay waana ta ay khatarta ku sugan ay maanta ku sugan yihiin xisbiyada Somaliland oo kori waayey. قال هذه هذا حسب بدن واحد قري أقول يعني بلحم شيء حسبينمو وهاي يقول على هاي نتاعي حسبية دي وشرعية دي عنده كان سنين ونكر الضمبين لحين ونقدرين لحين وواحد لو واحد معرف في كيلو فرق كأي سنجري. حنو لنا هاي سأل نقولون بشو سياسة هروب ومرتا بشو تيران كديمقراطية ده أساسية xisbinimadu inay tahay ta dowladda gasha ta xukunka qabata ta bulshada u iftiimisa barnaamij soo jeedina oo lagu kala doorto oo markaasi dadku ay noqdaan dad teamwork oo wada socda oo soo halgamay oo loo kala dambeeyo xisbiga. adduunyada dimuqraadiga xisbiyadu waa lagu abtirsadaa jad baa la kala dhexlaa. carruurta iyagoo 10 jir ay galaan madaxweynayaasha aad aragtay ama Bush ha noqdo ama Obama ha noqdo jiilkii markay 10 jirka ahaayeen bay xisbiga bilaabeen oo xisbiyahan noqdeen. aabayaashoodii waalidkooda ugu horreeyey saasaa la isu daba taxaa oo ay noqotaa abtirsiin iyo qadarin qofku ifirka uu geliyey lagu qiimeeyo lagu qadariyo. xisbinimada kuma dhisanto meel iska furan oo la kala garan waayo madax iyo mijo, meel iska furan oo la kala garan waayo kii awoodda iyo ifirka iyo cimrigiisa gashay iyo kii ma garanaysaa soo biiray ka ku soo biiraya markuu arko kii hore sida loo galay ee loo qadariyey ee loo ixtiraamay ayuu ku dhiiranayaa inuu xisbinimadiisa aaminsan ku samro. laakiin ka soo galana markuu ku soo galo inuu kii hore xaqiisa dulmiyo ka dambe imanaya isagana taasoo kale ku dhacayso way istiri joogaysa inqilaab joogta unbaa inagu soconaya. xisbiguna horumar ma gaadhayo. waxaan leeyahay dadka xisbiyahanka ah isu taga xisbi kasta ahaada xisbigiina u dhiga shuruud adag xisbigiina u dhiga qiimeyn adag ku walaalooba isku aamina qabyaalada kaga baxa barnaamijyo ku mataanooba ku dooda dhexdiisa isku qabsada noqda dad isdabeecad barta ninka la dabeecadiisa xisbiga la bartay markuu carado la yaqaano kelmaadka lagu soo celinayo hogaamin la tijaabiyey oo garanaysaa la soo bisleeyey oo cadhadiisa iyo curfigiisa iyo halka loo marayo iyo cidda loo diraayo iyo muftaaxiisa iyo qufulkiisa intaba la ogaado ayaa ah dadka maaragtay xisbiga loo dhiibo hoggaankiisa. waa ixtiraam qofku uu mudan yahay markaad ixtiraamto ninkii iga awoodda badnaa ee xisbiga iga soo jeedin badnaa ee iga ifard badnaa ee iga waqti badnaa ayaad anigana i qadarinaysaa marka aan kusoo biro xisbiga haddaan ahay. waayo waxaan ogaanayaa markaa inaan waxan gashado xisbiga aan midhihiisa helayo. qaladaad badan ayaa ina dhex maray xisbiga kulmiye qaladaadkaasi oo ahayd muxaafidnimo aynu garan weyniyo mucaaradnimo
dowladdii iyo xisbigii oo noqday laba garab oo halkii ay noqon lahaayeen dad gacmaha haysta iyagu isgarbiyey oo laba dariiq oo parallel kala maray imanka ilaah mahadi weeye madaxweynaha iyo guddoomiyuhu haddii ay garteen in laysku soo cesho oo aynu uga tagno madaxweynuhu uga tago legacy xisbigiisa oo noqdo xisbi jira oo jooga oo lagu ixtiraamo madaxweynaha maanta axmed maxamed oo ah asaasaha xisbiga kulmiye waxay dantiisu ku jirtaa oo magaciisu ku jiraa oo taqaranka ku jirtaa oo xisbiga kulmiye ku jirtaa waa jiritaanka xisbiga badbaadintiisa iyo inuu aasaaska uu dhigay uu ku wareejiyo ciddii midhaha la keentay guusha la keentay inuu ku wareejiyo oo halgankii halkii ka socdo oo laysdaba taagnaado oo qofba qof ku ixtiraamo oo qofba qof uga dambeeyo oo inuu noqono jiilka jiil xisbiyahan ku abtirsada xisbiga kulmiye oo aan kaga baxno beelaha oo saaxiibkayga kulmiye uu noqdo ninkay garab taagan berrito ninka maanta aan garab taaganay isaguna berritay garab taagnaado sidii aan madaxweyne axmed maxamed u berber taagnayn markii uu halganka ku jiray inuu maantana isu berber taago xisbiga kulmiye oo weliba xisbi magaciisiiya aasaaskiisiiya oo ka hadhi doona taariikhda halkaasi xafiiska kulmiye ee jira halkaa bool weyn uu sawirkiisu ku yaalo kuna ooli doona insha allahu tacaala guuluhu xisbigu keenana isaga uu noqon doontaa magac iyo legacy uu kaga tago qaranka somaliland innagana waxayna la gudboon hadaynu nahay xisbiyahanka inaynu xisbigeena boorka ka tugno inaynu xisbigiiyo xukuumadda mataanayno inaan qaladaadkii jiray aynu ka faa'iidaysano inaynu guushii aynu dhawaynay ee xukuumaddu waxyaabihii ay qabatay waa waxyaabo xisbiga kulmiye keenay oo ah daan xisbiga kulmiye aanu ahayn xisbigii guusha helay ee madaxweynaha doortay waxyaabaha waxqabadka ahay maanta xukuumaddu samaysay may samaysay mana hirgashan taa cidna loo sheegi maayo faan bay inoo tahay guul bay inoo tahay waxqabadka xukuumadda inaga xukuumadda dhalay madaxweynaha inaga keenay madaxweynuhuna maanta waxa weeye halkuu kaga tegaayo taariikhda waxay tahay guusha xisbiga kulmiye iyo taariikhdiisa oo dib u xusuusto ciddii berber taagneyd ciddii la hawlgashay ciddii la soo jeeday ciddii la qaday ciddii xabsiga loo dhigay ciddii afka laga cabudiyey ciddii hantida ku weyday ciddii hantida ku bixisay dhammaan inuu dib u xusuusto madaxweynuhu si uu qiimeeyo mustaqbalka soo socdana cidda ka saari karta xisbiga ay joogteen karta ee lagu kala dambeyn karo marka kii ifarka geliyey ee mirdka ku hela la ixtiraamo ayuu xisbigu dhammaan noqonayaa dad walaala ah oo nin waliba uu ku qanco wallaahi haddaad maanta shaqayso haddaad dadaasho haddaad maanta adooda beri taageli doontaa xisbigu waa inu ahaadaa xisbi u muuqda oo dad leeyahay oo dad u suntan yahay dad leeyahay marka leeyahay waxa weeye xisbi dadka leh ay yihiin dadka hawsha u qabta dadka si joogto ah uga midho dhaliya dad si joogto ah maxaan ku idhahdaa u halgama ee si joogto ah uga midho dhaliya inay noqdaan bala dooni xisbiga taasaan kaga baxayaa waxaan leeyahay dhammaan xisbiyada kalena sidaas oo kale ha noqdaan waar xisbiyadaan xoojino war qabyaaladdu markaasi ay naga yaalaan waar tallaaye aan ku bedelo xisbi hebelo tallaaye yaa reer hebela aan ku bedelo xisbi hebelow aan ku bedelo aynu ku tartarlo mabaadi mar walba xisbiga xukunka qabta ha laysu daba taago ha loo baneeyo inuu maamulka xisbiga administrationka hayo ha laguna ilaaliyo inuu shuruucda iyo dastuurka dhowro oo ha lagu caarido barnaamijyo oo ha lagu caarido afkaar laakiin yaa lagu caarido yaa reer hebela yaa reer hebela kasoo kaca yaa reer hebela inaga dhimayso aan ku walaalowno xisbi aan ku walaaleyno mabaadi aan ku walaaleyno magaranaysa mustaqbalka somaliland horumarku taasuu ku jiraa marka ninka saylac jooga iyo ninka jooga maxaan ku dhahdaa ceerigaabo ay sanaag ay walaaloogaan ninka berbere jooga iyo ninka burco jooga iyo ninka bulaxeer jooga iyo ninka beledhiig jooga ay walaaloogaan ay noqdaan dad mabaadi ku walaaloobay oo nin waliba mabda iyo ra'yi ku raacsan yahay ku taageero mar walbana ciddii dadku foodka badan u siiyo ay noqoto cidda hoggaanka qabanaysa cidda kalena ay ku ilaaliso shuruucdeeda kulana tartanto barnaamij waxqabad somaliland talaayada ha ka baxdo cimri yar ma joogno waa beenaale ninka kula dowladeenu waa ordin ma aha waxaynu maraynaa
maalinta sharcigiisu aynu dowladda soo ceshinay ilaa maanta dhowr iyo 20 sannadood 20 sannadood ayaa ka soo wareegay iyo siyaada waa rubuc qarni wey war 9 sannadood oo 60 ilaa 69 ayaynu saddex ra'iisul wasaare iyo 2 madaxweyne ku kala bedelay ayaan 9 sannadood maanta baarlamaankeenu dhowr iyo 10 sannadood buu marayaa oo bedeli kara laana waa dib u socodnimo iyo gaabis runta aynu soo sheegno تعال هاي الدكتور وتلا يريه من مشاريع دينه وبهلال حسب يدي أنا سنة أيام لا سنين عمر قبيلة دحدقية عمر بقف وصوت توريا عمر بطل توريا كان ترى غسوق تاريا وأنا قدرين يعني تدكي سؤال الجميع حسبنا وأنا قدرين يعني تدكي مبادئ الجوشة كوجانية وأنا قيمين يعني حسبية هنك إيه مرة بالانقلاب جبتها عن صعوبة سومالي يعني حسب نقوم معيو دان لوكال دنبين حسب نقوم معيو هدان لسقيمين حسب نقوم معيو هدي قفل بتاريخ سر إلهو حسب نقوم معيو هدي تلاعي بقى الضبط كانوا وانا كتعمو ومعما يستوصنو وصل كذا حسب لما انتو سبوع علمو ورقة هوش أو قبتي هوش أو قبتي وقولي قولها كامي هل يسكت دكتور أو هلو احترام أو طلعي يمدينه أو يا حسبي بلا ينقض واضح أنت أصلا ربحيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.